له والليالي ورصاص من حوله وجنود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميل باتشوكتين وحين لي ويلكم تو ماي يوتيوب شانل. وجبدين النصر أو وحكو هاي سوداعي هاد أو ما أنت إذا وضم مقال عسب يكون قاطع مشغول كي جالس كبدن هو يا هاي مركا إن شاء الله حرجينا يا معركتينا يكون قاعدين يسين وأيوة بيلي جوكتين بقى أنت عسبنا وحين لا سود هذا إن ساعة كأركتد بمعركتي إن ciwaanka maaragtay maanta maaragtay ereyga aan rabay inaan maaragtay diirada saaro awoodu xooga bas ma ahan ee awoodu waa maskaxda waay bilaadan intee laga hagaa halkaas laga hagaa maskaxda signaalka diraysaba haddii maaragtay awoodeedii intay wiiqantay ee signaal qalada ay jirka siinayso awood ma lihid taas macnaheedu waxa waaye gabdho badan oo waxa arkay platformka ku ooynayaan aniga waa kala qaaday kuwana waxay u baahan yihiin maaragtay treatment inay maaragtay quraan la saaro in maaragtay dhaqaatiir psychology lala kaashado oo maaragtay caawinaad oo caafimaad u baahan yihiin kuwana waxa waaye waa looga darooyaa dadka uga darooyaan marka aniga waxa waaye as a gabar as a hooyo haddana aan wadan Soomaaliyeed aan wadano dad Soomaaliyeed aan nahay iyo dad muslim aan nahay waxaan rabaa inaan ku siiyo 3 talo oo aan rajaynayo ani as nasr ahaan way ii shaqeysa hadii ay qaadatid adiga waliba maaragtay alla ka cabsi ku dabaqaayo inay ku shaqeyn doonto. Number 1 talada koobaad aan ku siinayo wixii tahay markay dhibaato kugu dhacdo ilaahay ku carar jooji bil aadankan iyo platformka aad ku soo cararaysid gruubyada dadkan agu ciiso dhibaato ay ugu dhacday waa wareeydan jooji waa wareeydaada ilaahay ku abuuray oo la laabo subxaanahu wa ta'ala ee adduunkan ku keenay ee caafimaadka ku siiyay lixdaada lixataamka kaaga dhig oo la laabo ilaahay kugu filan yahay ilaahay oo la laabo ilaahay oo awoodisi aan dhibaatada uga baxo ilaahay oo awood isii aan ku heel gareeyo ilaahay oo awood isii hadaa ood maanta yar oo aad dhasho oo haysato aan ku korsado dhibaayo hala imaanin dadkan oo waxaan ku dhahay laga yaabo inaad xaq ilaahay uga dhowdahay qalbi ahaan aad ka fiican tahay problemankaaga hala soo share gareynin wax ay ku qaban karaan bala wallahi billahi tallahi ilaahay subhanahu wa ta'ala wax uusan ku qabanin bila aadan kuma qaban karaan wax kasta ay bil aadanku ku siiyaan ilaahay subhanahu wa ta'ala kugu soo dhiibay hadoo maanta walaalka wax ku siiyo hadoo wax ku qabto ilaahay ku soo adeejiyo laakiin adiga mar walba hadafkaaga ha noqdo in ilaahay aad VIP u noqoto bil aadankan oo aad maaragtay aad ka fikiraysid horta jooji ilaahay subhanahu wa ta'ala u laabo ilaahay aamin ilaahay waa kugu filan yahay ilaahay aamin ma aamini kartaa jawaabtaada yaa saday tahay number 1 hortaas iga qabso ilaahay uu kugu filan yahay aamin wax kastana asiga la kaasho wax walba aad ilaahay la kaashato waad ku liibaanaysaa waad ku aflaxaysaa awooda ka qaadaysaa dhiirigelina ka qaadaysaa awood maskaxeeda yeelanaysaa dhaleecayntan faraha badan leh iyo eedeyntan faraha badan leh ee maanta dhan bil aadanka ah eedeynayso especially qofka partnerkaaga ahaay ee aad nolosha intaad ku midooda aad ku kala tagteen hadduu xumaay hadduu fiicnaay waa isdaysiin haddaad intaad ilmi isku dhasheen oo ilmihii maanta wax kugu siin waayo oo kugu biili waayo oo kugu daryeeli waayo ilaahay asiga mas'uuliyad iska dhaxaysaa maalinta qiyaamo waa lagu xisaabtamayaa marka adiga hadaa maanta 5 salaad waa adigoo maaragtay salaadahaagii si sax u dukan waayay ama salaadihii qayb kamid ka tagay yaa kula xisaabtamaayo ilaahay subhanahu wa ta'ala kula xisaabtamaayo dadku uma baahan inay dhahaan heblo waa salaad taariku salaad waayo salaadii ka tagta ayaga kugu dambaabayo marka macnaheedu waxa marka ninka maalin walba aad nala shir gareynaysa ama platformka aad keenaysid way ku dambaabaysaa dambiga lagu qoraya
laba mara ayaa garbahayga saaran ma ka fikirte marka silent is the best way ee lagu gaaro meesha rabto aamusnaanta waxaan ku dhahay qof walba qofku ka aamusnaan badan ka cabso dadka aamusan ka cabso waxay la aamusan yihiin haddii adduunka keenaan waa la yaabaa lagu kala guraya marka adeegso aamusnaanta adeegso aamusnaanta waxaan ku dhahay waxa ka dhigataa hubka ugu khatarsan ee qofka bini'aadanka ah especially dumarka rab inay ku dagaalamaan waa aamusnaanta adoo aamusana waxaa la rabaa inaad heer sare isgaarsiisid waan isgaarsii kartaa laakiin jooji dambigan aad gelaysid qofka maanta 12 aad kusoo celcelinaysid stop number 3 taada ugu dambaysan ku siinaa waxay tahay quraanka saaxiib la noqo especially suuratul baqara hamogaanin please ma laasimi kartaa inaad suuratul baqara hal safxad ba ha ahaatee aad aqriso maalintii aad laasimato tijaabi oo ku faa'iidi doontaa awood waxaad yeelan doontaa extra oo aad marka qaar isweydiinayso waxaan awood xagee ka keentay walwalka ka yaraanayo ku haysto suuradaasna hamogaanin salaadahaagana si fiican u duko waayo salaada wax kasta oo xumaanay ka reebaysaa hada ka hor macnaha nin rasuulka sallallahu alayhi wasallam saxaabada wuxuu maqlay oo dhahay ninkaas waa nin salaatul leyl badan laakiin xoogaa gacanta wax uu xadaa wuxuu yiri hadduu qof macnaha ilaahay subxaanahu wa ta'aala inta u soo kaco salaatul leyl dukanayo oo yahay oo salaadiisa uu saxo xumaanta oo ayada ka reebayso marka hadaa rabto xumaanta iyo xiqdiga yacni iyo waxa dhibaatadan ku haystood maaragta aad mar platformka ay keenayso dadka ala shirgarinaysa inay ka joogsadaan oo qof maskaxdiisa maaragta awood maskaxeed leh inaad noqoto hadaa rabtid ilaahay isku xir salaadahaaga duko quraankaaga akhriso naftaadana mas'uul ka tahay aakhir waxa lagu weydiinayo waa naftaada iyo hadaad awlaad dhashay marka naftaada iyo mas'uuliyadeedii awoodii naftaada hadii aad maalin walba qof dhaleeceynayso qofkaana saa igu samee kana saa yiri awoodeeda aad ku wiiqdid aakhir waa lagu weydiinaya marka waxaan ku leeyahay noqo gabar han leh hanku ma aha inaad qof isla weyn tahay laakiin hanku waxa waaye inaad tahay qof dadnimo leh noqo gabar han sare leh gabar han sare leh macnaheedu maxaa waaye gabar awood maskaxeed leh awood jireed ma ahan oo maskaxdeeda u kala go'do maskaxdeeda wax ku maamuli karto gabar dadnimo la noqo oo nafteeda ku faanto nafteeda waan kugu faanaa nafteeda waan kugu faanaa marka 3 mar tiraado hooyada waa inay tiraahdaa gabadheeda waan ku faanaa haddaad awlaad ilaahay ku siiyay awlaadada waa inay ku dhahaan hooyaday waan ku faanaa walaalaha waa inay ku dhahaan walaashay waan ku faanaa haddaad baartan leedahay waa aad nin leedahayne ninkaaga waa inuu aaminsan yahay ooyoyoy wallahi haddii ay maaragtay heblaayo ay iga tagto waxbaa iga tegay ha noqoni gabar la dhayalsado ballanteena waa inaan lagu dhayalsanin oo inta aan kuu soo sheegay awoodahaaga waxa wiiqaya iska joojisid oo awoodaada maskaxeed waa awoodda saxda ah aad adeegsatid oo awoodda jirka aad mar walba isticmaalaysid iyo signaalada qaldan maskaxda ku soo dirayso intaad cuudu bilaysatid oo aad diintaada gacanta midig aad ku qabsato waa ballanteena meel baa joogtiin waxaan idin leeyahay haddaad video ka hesheen si share gareeya inta cusubna waxaan idin leeyahay hadda video xaqiisa siiya waa si carra shaqo oo si carra. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.